السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتين aad baan idin salaamay walaalkiin Cabdirasaaq Shabcaan oo idin leh maalin wanaagsan doorashad kadib wanaagsan isu soo noqod wanaagsan inta ku xidhan page-kayga Cabdirasaaq Shabcaan official iyo base bogga aan ku leeyahay Facebook-kayga khaaska ah ee hoon Cabdirasaaq Shabcaan. dhammaantiin waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan, salaaso wanaagsan, sanad iyo khayr iyo bashbash iyo maalin xorriyadeedba wanaagsan. waxaan idin sheegayaa in madaxweyne cusub waddanka loo doortay maadaama aan anagu nabad iyo nolol ahaynna waxaanu aad u jeclayn mar walbaba in aanu dalka midnimadiisa iyo qadarintiisa aanu taageersanahay. haddaba maanta laga bilaabo maadaama aanu qaran doonahayn madaxweynihii iyo xisbigayga uu ka degay xilka shalayna wareejiyay sida gobonimada lahayd, haddaanu nahay xisbiga nabad iyo nolol, haddaanu nahay dhalinyarada nabad iyo nolol, haddaanu nahay cid kasta oo dhalinyarada nabad iyo nolol qabiil male, cid kasta oo dalka iyo qarannimada taageerisaba waxaanu ballan qaadnay 4 sano inaanu mucaarad ku noqon madaxweyne xasan sheekh maxamuud. wixii dhaliilo oo soo jeedino oo aanu aragno qaran dumis inaanu ka hadli doono, laakiin aananu bilaa macno aananu ku mucaaradi doonin. waxaan kaloo idiin sheegayaa idinku bashaarinayaa in madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo muqdisho degan yahay talo iyo tusaalena uu halkaa u joogo. waxaan kaloo idiin sheegayaa inuu dhowaan la hadli doono shacabka Soomaaliyeed. waxaan kaloo idiin sheegayaa inaanu nabad iyo nolol dhalinyaro iyo ciroole iyo waayeelba aanu u taagannahay inaanu ilaalino qarannimada dalka. xasan sheekh madaxweynaha cusub oo mar labaad khibrad u leh oo dalka inuu sii burburiyo aan laga sugayn uu sanadkan diyaar u yahay 4 sano ee soo socota inuu dalka meel horumar gargaarsiiyo. madaxweyne waa ku garab taagannahay meel kastoo aad dunida joogtaba. mudane xasan sheekh maxamuud soo dhawow, waanu ku leenahay kaliya laab dhalinyarada Soomaaliyeed haddaanu nahay waanu kula shaqayn doonaa. waxaan kaloo la dardaarmayaa meel kastoo ay joogaan dhalinyarada Soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud. waa nin dalka iyo dadkaba yaqaan, nasiibna u yeeshay mar labaad inuu dalka hogaamiyo. waa arrin aad dhif iyo naadir waa maanta nin Soomaaliyeed oo mar labaad dalka madax ka noqdo. waxaan leeyahay mudane madaxweyne, nasiib baad leedahay, ka faa'iidayso nasiibkaaga, dalkana noo horumari, waananu ku soo noqon doonaa dalka, waananu ku garab taagnahay. waa walaalkeenadu leh sheer gareeya lana socda barnaamijyada insha Allah cusub ee xasan sheekh maxamuud.